rabnaa la wadaagno wararkii odayaashu sheegeen iyo nabadoonnadii cuqaash oo kooban hadii alla idmo sida la sheegay warsaxaafadeedku wuxuu u dhacayaa sidaan ujeedo warsaxaafadeed ay soo saareen golaha dhaqanka iyo wada tashiga beesha Habareedinle waa beel kamid ah qabiilka Mursade waxayna taageero buuxda u haysaa dawladda federaalka Soomaaliya beeshu waxay cabasho ka tahay kuraasi bareer ah looga boobay doorashadii dad badaneed ee ka dhacday dawlad goboleedka Galmudug 2016 kuraastaas waxaa si bareer ah u boobay Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer iyo Xuseen Qaasim Yuusuf Iidow ayagoo u kaashaday madaxweynihii hore Xasan Sheekh iyo madaxweynihii hore dawlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed waxayna si cad u bedeleen ergadii doorashada ayagoo qortay dad aan beesha u dhalanin saasna ay ugu codeeyeen waliba qaab aan waafaqsaneyn dastuurka Soomaaliya iyo nidaamka doorashooyinka ee dawladdu ay u dejisay arrinka oo khilaaf xoogan ka dhex dhaliyay beesha Habareedinle haddaba beeshu waxay waa inay khilaafkaas meel iska dhigto una laabato dhaqankiisa u banaa ee walaaltinimada ahaa ee hore uga dhaxeeyay xeerarka dawladda waxa la waafajiyaa dastuurka dalka u degan waxa la waafajiyaa dhaqanka sidaa darteed waa inaan ixtiraamno odayaasha dhaqanka si taa loo amba qaadana beesha Habareedinle waxay dhisatay golaha dhaqanka iyo wada tashiga oo nadaamin doona habraaca dhaqanka beesha Habareedinle shirada ay isugu timid beeshu magaalada Muqdisho bilihii la soo dhaafay kana soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida cuqaasha nabadoonnada aqoon-yahanada dhalinyarada siyaasiyiinta iyo haweenka ayaa ugu dambeyn la isla gartay in beeshu gudaha iyo dibadda ka wada shaqeyso xallinta khilaafaadka ka jira dhexdeeda qaab walaaltinimo in loo gurmado dadka abaareysan ee ku nool degmada Galhareer iyo nawaaxigeeda inaysan ku metelin beesha ragga kala ah Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer iyo Xuseen Qaasim Yuusuf Iidow dhaqan iyo siyaasad toona maadaama aysan ku imaanin rabitaanka iyo ogolaanshaha beesha in Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer iyo Xuseen Qaasim ay ka hor wareegaan kana daayaan carqaladaha gargaarada bini'aadanimo ee loo wado shacabka ku nool degmada Galhareer beeshu waxay dhisatay golaha dhaqanka iyo wada tashiga oo ah golo loo dhan yahay oo hormuud u yahay suldaanka guud ee beesha Habareedinle Suldaan Abuukar Socdaal Abtidoon goluhu wuxuu ka kooban yahay 51 xubnood 8 xubnood oo fulin ah iyo gudoomiye guud oo yeelanaya wuxuuna goluhu leeyahay sharciyo iyo xeer hoosaadyo kala hagan beeshu waxay hoosta ka xariiqday si aan kala har lahayn inuu Suldaan Abuukar Socdaal Abtidoon looga dambeyn doono wixii dhaqan ku saabsan si lamidana lagala tashan doono masiirka siyaasadeed ee beesha Habareedinle wabillahi tawfiiq assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh